السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود واضح أدي مقال كان waxaan rabaa inaan idin kula wadaago Ilhaan Cumar oo u jawaabtay madaxweyne Trump kadib markii 2 maalmood ka hor uu dalka ay ka soo jeeday ee Soomaaliyana uu si weyn u caayay iyadana uu ku tilmaamay wasaq doonaysa in wadankeena sida aan u maamulno inay noo sheegto doonaysa. Haddaba Ilhaan maxay ugu jawaabtay waan idin la wadaagayaa. Iyo sidoo kalena madaxweyne Trump oo cadaystay aargoosiga uu doonayo inuu ka aargoosto dadkii horay u maxkamadeeyay ama kuwii baaritaan ku sameeyay gurigiisa Mar-a-Lago. arrintaasi oo xitaa nin xeer ilaaliyaha uu magacaabay kadib markii uu yiri dambi u soo raaday xeer ilaaliyaha gobolka New York Letitia James oo wax dambiya ku soo waayay uu is-casilay kadibna qof kale uu shalay u magacaabay. Haddaba wasiirka cadaaladda sidoo kale shalay bartiisa True Social maxaa qoraalka uu ku soo qoray uu yahay uu ku amray uu leeyahay ilaa ay hadda hadal oo kaliya ayaa wadaan laakiin wax ficil ah idinka ma hayo. isagoo Mareykanka soo gaarina hawada ku soo jira in bartiisa True Social uu qoraal ku soo qoray uu wadanka Soomaaliya ee Ilhaan ay ka soo jeedo si aad ah u dhaleeceynaya oo dhahaya musuqmaasuq iyo dagaalo iyo faqeertinimo ayaa la degtay iyaduna waa qof wasaqa oo doonaysa wadankeena sida aan u maamulno in ay noo sheegto laakiin arrintaasi kama yeelayno uu bartiisa True Social ku soo qoray. Haddaba Ilhaan Cumar oo shalay la hadlaysay telefishinka MSNBC ayaa arrintaasi ka jawaabtay. waxana ay uga jawaabtay sidan soo socota. waxyaabihii ay tiri ayaan idin la wadaagayaa muuqaalkeedana sidoo kale waa daawan doontaan. marka waxay tiri meeshan horay ayaan u soo joogay. waxay tiri ma ahan markii ugu horeysay oo Trump aniga uu dhaleeceeyo. waxaan ognahay xilligii hore Trump 4 sano madaxweynaha ahaa in sidan oo kale Ilhaan uu u daba dhigan jiray. marka waxay tiri ma ahan markii ugu horeysay oo bartilmaameed aan u noqdo madaxweynuhuna si midabta koornimo oo waliba qalalaasa ay ku jirto oo aniga iiga hadlo. marka waxay tiri arrintaas xitaa waxay sababtay in telefoonna layga soo waco oo la ii hanjabo dad fara badanna hadda xabsi ay ugu jiraan isla markaana ciidamo fara badan oo boolis ah ay ammaankayga ay sugaan. marka waxay tiri arrintan arrin la yaab ah hadda ilama ahan maxaa yeelay madaxweynuhu waxaan u maleynaya arrintan inuu ka gudbay isla markaana uu helay qof kale oo uu dhibo laakiin madaxweynuhu markastaba waxa uu buurayaa qalalaaso iyo inuu dadka kala qaybiyo. waxayna u muuqataa in arrintan uu iska jecel yahay in aniga uu markastaba uu idhaleeceeyo isla markaana sidoo kale qof kasta oo wadankan qaab soo galootiya ku soo galay oo aan Yurub ka soo jeedin inuu markastaba dhaleeceeyo. marka ma maqlaysid tiri isagoo ka hadlaya lahjada xaaskiisa Melania wadanka Slovenia ay ka timid Englishka markay ku hadlayso lahjad ay leedahay isla markaana sidoo kale ma arkaysid tiri isagoo ka hadlaya xaaskiisa iyadoo waliba wadankan iyaduna qaab soo galootiya ku soo gashay isla markaana xitaa fikir leh iyadoo aan ahayn qof xafiis loo soo doortay. marka waxa ay tiri arrintan ah inuu iska jecel yahay markastaba in qof ay soo doorteen 700,000 oo qof oo deegaanka laga soo doortay degmada shanaad ee gobolka Minnesota isla markaana Congress-ka loo soo doortay isla markaana haysata shahaadada la mid ah mid uu isagu haysto inuu markastaba dhaleeceeyo wax caadi ah ay la noqotay. laakiin waxay tiri waxaan u maleynayaa sidoo kale weerarka Nancy Mace waa markii hadda ay doonayeen in gudiyada ay ka saaraan toddobaadkii la soo dhaafay oo mooshinkaasina uu guuldareystay xildhibaanada Nancy Mace oo South Carolina laga soo doorto ayaa mooshinkaasi keentay. marka waxa ay sheegtay in Nancy Mace iyo xubnaha kale isku dayay in gudiyada ay ka saaraan ay markastaba ay banaanka keeneen sida ay stupid u yihiin waa sida iyadu ay hadalka u dhigtay. arrintaasina waxay tiri waa sharaf darro ay ku tahay wadankeena iyo sidoo kalena dadka madaxdeena u soo doortay dadka noocaasi oo kale ah. marka waxa loo baahnaa inuu madaxweyne u noqdo isla markaana xitaa wadamada midowga Yurub safar u tagaya uu hogaaminaya laakiin waxa muuqata sida uusan aqoon ugu lahayn in qof xildhibaan ah oo la soo doortay aan xilka qaadis lagu sameyn karin isla markaana sida hadda Nancy Mace iyo ninkan kale oo Randy ay ugu yeertay markastaba isaga waxay ku leeyihiin waan ku daba joognaa oo xilka qaadis ayaan ku sameynaynaa amaba waan masaafurinayna iyagoo si buuxda u og in qof muwaadin Mareykankana aan la masaafurin karin laakiin markastaba arrintaasi waxa ay banaanka keenaysaa ceebta Mareykanka. marka waxay tiri wadankeena waxa hogaamiya dad doqomo ah waa sida iyadu ay hadalka u dhigtay. madaxweynuhu dadka uu golaha wasiirada u doortay inta badan khibrad ma lahan waa dad yes man ah oo waxa uu yiraahdo aan ka soo horjeesan karin haddii ay ka soo horjeestaana sidoo kale xilka uu ka qaadayo. adigu haddii aad tababarato oo waxaas qabat tiraado uu ku qabanaya Soomaaliya madaxweynuhu dadka uu soo doortay waa dad taageerayaashiisii ahaa isla markaana si indhala wax kasta xitaa haddii ay dambi yihiin ku taageeraya. marka waxay tiri dad doqomo ah ayaa wadankeena maamula
sidaasi darteed waxay tiri dadka Mareykanku arrintaasi kuma faraxsana waxaana muuqanaysa ay tiri in arrintan ay tahay mid laga murugoodo in dadka noocaasi oo kala ah uu caalamku arkayo inayna matalaan marka Ilhaan Cumar sidaasi ayay uga jawaabtay hadalkii madaxweyne Trump iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna waxa ay tiri I've been here before. I've been the target of the president in the most vile, bigoted, racist ways that you could imagine. And I've had to have full police detail because of that. So it is surprising that he's back at it because I thought he's moved on and found a new person to harass. But here's, a president that is always unhinged, always strange, always creating chaos and division. And he seems to have a real obsession with anyone that is an immigrant in this country that is not of European descent. You don't hear him talking about the accent of his wife and the fact that she came here as an immigrant or any of those things, or the fact that she gets to have an opinion even though nobody elected her into office. But he has an objection to a person who does serve over 700,000 constituents in Congress, who's literally elected, has the same certificate as he does. But I think for me is I feel embarrassed for him because in these attacks, what he does, and I think with the likes of Nancy Mace, and whoever that Randy guy is, they expose themselves for how stupid they are. And that is embarrassing for us as a country because these are people who are elected to positions of leadership. He's supposed to be the president of the United States who's heading off to Europe to represent us. When he's uneducated enough to understand that members of Congress can't be impeached. When you have Nancy and Randy saying, we're on it, we're going to impeach her. When they're saying they're going to deport me, knowing full well that you cannot deport an American citizen. What that displays for not just Americans, but folks on an international platform is that our country is being led by idiots. And that is not something that we should be comfortable with as Americans. And that's not something that should make us proud. And so in this moment, I feel great sadness as an American that these are the kind of people that the world gets to see representing us. sidoo kale waxaa jirta gabadhan madaxweynaha dadka la taliya kamid ah laakiin si toos ah aan isaga ula shaqeyn laakiin dadka warka uu ka maqla kamid ah oo la yiraahdo Laura Loomer ayaa iyaduna barteeda X waxa ay ku soo qortay waa in aad ka dhigtaa ururka aqwaan muslimiinka inay yihiin urur argagixiso markaasi kadib Ilhaan waxa ay lagu eedeyn karaa ama lagu soo dacweyn karaa inay caawisay amaba taageertay urur argagixiso cadaynta halkaasi ayay taallaa waxaan kaliya u baahanahay in ururkaasi laga dhigo urur argagixiso marka waxa ay tiri haddii aad ka dhigto urur argagixiso madaxweynaha ay la hadlaysaa arrintaasi waxay ogolaanaysaa in Ilhaan laga saaro Congress-ka sidoo kalena waxay soo qortay Rashida Tlaib oo iyaduna gabar asal ahaan Palestine ka soo jeeda oo iyaduna Michigan laga soo doorto oo Congress-ka ku jirta dhinaca kale madaxweyne Trump dadkii isaga xilligii uu musharaxa ahaa oo ama dacwada ku soo oogay ama markii gurigiisa la baaray FBI-da ayaa waxa uu doonaya inuu ka argoosto madaxweyne Trump waxa jirtay xeer ilaaliye dowladda federaalku waxa ay gobolada u magacaawdaa dacwada ogayaal federaal ah oo dambiyada ka dhaca federaal ahaan u dacweeya goboladuna kuwa u gaar ah oo la soo doorto ayay leeyihiin marka kuwa federaalka madaxweynaha ayaa magacaaba kuwa goboladu ay leeyihiin waa la soo doortaa marka waxaa jira nin Trump uu magacaabay markii hadda xilka uu la wareegay ku dhawaad 9 bilood ka hor oo magaciisa la yiraahdo Eric Siebert waxa uu magacaabay Eastern District of Virginia marka ninkaasi waxa uu rabay oo Trump uu ka doonayay dacwadoogahaas inuu dacwad ku soo oogo xeer ilaaliyaha gobolka New York Letitia James waa haweeneydii ku dacwaysan Trump hantida uu ku leeyahay New York inuu ka been sheegay lacagta ay joogto sidoo bangiyada uu deyn uga helo waatii lacaga fara badan lagu ganaaxay hadda bishii la soo dhaafayna maxkamadda ay lacagihii Trump ay ka dhaaftay kadib markii racfaan uu ka qaatay laakiin laga mamnuucay in New York wax ganacsi uu ka sameeyay 3 sano caruurtiisana min 2 sano iyagana laga mamnuucay arrintaasina wali waa ay taagan tahay marka ninkii xeer ilaaliyaha uu Trump u magacaabay in uu dambi u yeelo Letitia James oo la yiraahdo Eric Siebert waxa uu sheegay baaritaan markii uu ku sameeyay 15 qofna wareysi oo la yeeshay inuu wax dambiye u soo waayay Trump oo jimcihii aqalka cad ka hadlay ayaa wuxuu yiri xilka ayaan ka qaadaya maxaa yeelay Letitia James wax dambiya waa uu u soo waayay
isagoo Trump aqalka cad ka hadlayay jimcihii waxa uu yiri she has to be guilty waa inay uun dambi leedahay laakiin waxa uu yahay ma aqaan marka qof aan dambi lahayn ayuu doonayaa in dambi loo raadiyo marka ninkaasi dacwadoogaa wuxuu yiri qofkan anigu waan baaray dambi waan ku waayay marka waxa uu doonayay in madaxay hore ee FBI da ninka la yiraahdo James Comey iyo Letitia James ba inuu dambi u soo raadiyo ninkii wuxuu yiri marka labadaba wax dambiya kuma hayo xeeralyaha Letitia James ayaa waxa uu soo qoray arintan waxa ay weerar qaawan ee ku tahay isku xukunka sharciga iyo waliba in aad dad shaqada aad uga qaado ilaa iyo in ay jabiyaan ama ay qalloociyaan sharciga maahane sidaas darteed madaxweynaha waxa uu arintanba ka dhigtay wax iska caadiya isla markaana waa sharci darro ayaa qareenka Letitia James uu soo qoray marka Trump markii jimcihii uu iscasilay ninkii dambiga inuu u raadiyo uu doonayay Letitia James iyo James Comey waxa uu shalay magacaabay haweeney aqalka cad madaxweynaha caawiye u ahayd oo la yiraahdo Lindsey Halligan waxa uu yiri marka haweeneydan ayaa dambi u soo helaysa adigu dambi waad u soo waysay Soomahan okay iska bax marka Trump waxa uu intii ololaha doorashada uu ku jiray waxa uu dhahayay maamulka Biden waxa uu isticmaalaya FBI da iyo wasaaradda cadaaladda si uu aniga dambi igu yeelo haddana isagii ayaa isticmaalaya wasaaradda cadaaladda iyo waliba FBI da sida muuqata marka hadda uu u magacaabay booskii uu jimcihii iska casilay Eric Siebert waxa uu magacaabay Lindsey Halligan oo Eastern District of Virginia marka waxa uu doonayaa in uu dambi uu u raadiyo hadda Letitia James iyo sidoo kalena ninka la yiraahdo James Comey oo FBI da madax ka ah marka qoraalkan ayaa Trump uu xalay bartiisa True Social uu ku soo qoray waxa uu kula hadlayaa wasiirka cadaaladda Pam Bondi marka wuxuu yiri waxaan dib u eegis ku sameeyay in ka badan 30 qoraallo iyo goobaha baraha bulshada waxyaabo la soo dhigay waana wax muhiim ah wuxuu yiri waa isla sheekooyinkii hore oo horey loo shoogi jiray laakiin dhammaantood waxay u muuqdaan inay hadal oo kale yihiin laakiin wax tallaabo ah uma jeedo ilaa hadda waxba lama qaban marka wuxuu leeyahay wasaaradda cadaaladda ilaa hadda dadkii aniga dhibaatada ii geystay oo gurigaygii baaray isla markaana aniga in maxkamadeeyay ilaa hadda wax dambiya waa u heli laadeen marka waa arrin cad oo qaawan oo muuqata oo dhahaya dadkaasi waa in dambi loo yeelo maraykankana qof dambi la'aana dambi looma yeeli karo hadda Letitia James waxyaabaha lagu bartilmaameysanayo waxa kamid ah mortgage fraud inay sameysay oo qofku in guri uu meel ku leeyahay guri kale uu ka been sheegay waxyaabo sidaas ayuu doonayaa in dambi loogu yeelo marka hadalkiisii Trump waa uu sii watay marka waxa uu yiri maxaa laga qabtay James Comey waa ninkii hore madaxa FBI da marka wuxuu leeyahay Adam Schiff isaguna waa senator California laga soo doorto sanadkii ku jira iyo waliba Letitia calaamad su'aal saddex ayuu saaray saddexdaasi qof ilaa hadda dambi looma hayo xitaa Adam Schiff ninkan senatorka isagana mortgage fraud ayaa lagu haystaa oo arintaasi ayaa lagu baaraya marka dhammaantoodba wuxuu leeyahay dambi ayay leeyihiin Trump dadkii oo aan dambi lagu helin wuxuu leeyahay dhammaantood waa dambiilayaal ee dambi hal igu soo raadiyay waa dambiilayaalna uu leeyahay dambina hal igu soo raadiyay waa uu leeyahay marka waxa uu ka hadlayaa xeeraliyihii jimcihii iscasilay oo dambiga u soo waayay Letitia James iyo Comey waxa uu leeyahay xeeraliyahaas waxa taageeray dimuqraadiyiinta markii aan xeeraliyaha Virginia aan u magacaabayay marka waxa uu sheegay in uu ahaa qof Republican oo aad u xun markiisii horeba wuxuu yiri wiligiisba ma doonin shaqadiisa inuu qabto that is why ay dimuqraadiyiinta senatarada ah ay markii la saxinayay ay u buushkareeyeen oo ay u taageereen marka xitaa meediyaha been ayuu u sheegay inuu iscasilayo macnaheedu wuxuu leeyahay isagu arintaasi ma ahan iscasilin aniga ayaa shaqada ka ceeriyay marka waxa uu leeyahay halkan waxa taala case aad u weyn qareeno fara badan iyo dad fara badan oo sharciga aan falanqeeyana waxa ay leeyihiin meeshan case weyn ayaa yaala sida darteed haweeneyda uu magacaabo Lindsey Halligan ayaa wuxuu leeyahay waa qareen aad u fiican wayna ku jeceshahay wasiirka cadaaladda ayuu la hadlayaa wayna ku jeceshahay sida darteed ma doonayo in arintan dib loo sii dhigo intan wixii ka dambeeya waxa ay dilaysaa ayuu yiri sumcadeena iyo sidoo kalena macquulnimadeena credibility-ga sumcadeena marka laba mar ayay xilka qaadis ugu sameeyeen dimuqraadiyiinta ayuu la jeedaa ogoya laba mar ayay xilka qaadis ugu sameeyeen 5 marna waa isoo dacweeyeen marka anigoona wax dambiya lahayn marka justice must be served waa in cadaaladda hadda la helaa president DJT ayuu ku soo gabagabay marka waa magaciisa Donald J Trump marka Trump sida muuqata maba qarsanayaba waxa uu leeyahay dadkii aniga 5 mar in maxkamadeeyay oo dacwad igu soo oogay isla markaana gurigeyga baaray qasrigeyga Mar-a-Lago 2 marna xilka qaadis ugu sameeyay iyaguna waa in dambi loo soo raadiya marka ninkii Trump halkaas uu taagan yahay argoosigiisa waa uu cadaystay oo maba qarsanayo Maraykanka iyo Shiinaha oo ka heshiiyay iibka aaladda TikTok waxaan ogeyn maamulkii hore ee Biden uu hogaaminayay Congress-ka inay meel mariyeen sharci
sharcigaasina madaxweyne Joe Biden uu saxiixay isla markaana uu dhaqan galayay 19 bishii koobaad ee January ee sanadkan 2025 maalin ka hor inta Trump uusan xilka la wareegin. Trump 20 January ayuu la wareegay. marka Trump markii uu xilka la wareegay waa kii wareegta saxiixay uu muddada lagu iibsan karo oo shirkad Mareykan ay ku iibsan karto TikTok uu kordhiyay. marka hadda talaadadii la soo dhaafay ayaa markii afraad uu kordhiyay maadaama weli aan la helin shirkad iibsata aaladda TikTok oo shirkadda ByteDance oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo iska leh TikTok inay ka iibiso la doonayay. haddaba maamulka madaxweyne Trump waxay jimcihii ku dhawaaqeen in Mareykanka iyo Shiinaha ay ka heshiiyeen iibka aaladda TikTok. marka shirkadda ByteDance shirkad Mareykan ayay ka iibinaysaa. Mareykanku waxa uu ku andacoonayay ammaanka qaranka Mareykanka ayaa aaladda TikTok ay khatar ku tahay maadaama xogta dadka Mareykanka ay si fudud ku heli karto dowladda shuuciga ah ee Shiinaha ee Xi Jinping uu hogaamiyo. marka Trump hadda muddadii 8 bilood ee xilka hayay waxa uu isku dayay sidii shirkadda iska leh aaladda TikTok ee ByteDance ee shirkad Mareykan ah ay uga iibin lahayd. haddaba heshiiskaasi marka waa uu soo gabagaboobay waxa kaliya oo ka harsan waxa ay tahay in la saxiixo oo qalinka lagu duugo. heshiisku marka muxuu dhigayaa? heshiisku waxa uu dhigayaa in abka TikTok lahaanshihiisa laga soo wareejiyo shirkadda ByteDance oo shirkad Mareykan ah ay la wareegto. sidaas darteed inta badan majority-ga waxa yeelanaya aaladda TikTok oo xukumi doona dad Mareykan ah ayaa boqolkiiba ama inta badan boqolkiiba 80 haddii ay ka badan tahay waxay yeelan doonaan aaladda TikTok. sidoo kalena guddiga maamuli doona aaladdan TikTok oo 7 xubnood ka kooban 6 kamida waxay noqon doonaan Mareykan. markii hore majority-ga Shiinaha ayaa iska lahaa. marka hadda 6 kamida waxay noqon doonaan Mareykanka, dad Mareykan ah ayay noqon doonaan. sidoo kalena waxaa jiri doonta in algorithm-ku waxyaabaha la yiraahdo waxyaabaha dadka Mareykanku ay arkayaan amaba ay daawanayaan waxaa sidoo kale maamuli doona dowlad shirkad Mareykan ah. shirkadda la yiraahdo Oracle ayaa waxay kaydin doontaa xogta dadka Mareykanka iyo privacy-gooda waxyaabaha sida gaarka magacooda, address-kooda, social security xogtooda dhan shirkadaasi Mareykanka ee Oracle ayaa sidoo kale kaydin doonta. marka ilaa iyo 170 milyan oo qof ayaa lagu qiyaasaa dadka Mareykanka ah ee isticmaala aaladda TikTok. marka waxa muuqata hadda in maalmaha soo socda oo kaliya heshiisku waa dhacay macnaha waxyaabahaas oo dhan waa lagu heshiiyey. waxa kaliya oo harsan waxay tahay in la saxiixo oo qalinka lagu duugo sida telefishinka Fox News ay u sheegtay afayeenka aqalka cad Caroline Levitt iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna waxa ay tiri. Yes, we are 100% confident that a deal is done. Now that deal just needs to be signed, and the president's team is working with their Chinese counterparts to do just that. Great credit to Secretary Bessent and Ambassador Jameson Greer and our Vice President J.D. Vance, who really led the charge on this and have been negotiating with the Chinese for months. And they were able to accomplish a deal that puts America first and keeps TikTok open for all of the young Americans and all of the small businesses who have benefited greatly from selling their products and really creating a name for themselves on this highly popular app. President Trump was ahead of the curve on this. He recognized the need to protect Americans' privacy and data while also keeping this app open. TikTok is a vital part of our democratic process, and President Trump credits TikTok and, of course, Charlie Kirk for the wins that he had with young Americans in the last election. But this deal does put Americans first, and let me just be very clear. This deal means that TikTok will be majority owned by Americans in the United States. There will be 7 seats on the board that controls the app in the United States, and 6 of those seats will be Americans. And the data and privacy will be led by one of America's greatest tech companies, Oracle, and the algorithm will also be controlled by America as well. So all of those details have already been agreed upon. Now we just need this deal to be signed, and that will be happening, I anticipate, in the coming days. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta waxyaabaha kale ee soo kordhay stay tuned waa idiin soo gudbin doonaa insha Allah mahadsanidin.